goor kulul la weeye dee waa adiga arkay dadkii anaga u dambeeyay Soomaali marka meel shaqo ka socotana waan ku socdaa halkaas ku wareysano wax wareysi weyn oo dheer bay u baahan tahay dawladda hoose cidi waxba ka musuqi karto markii aanu meeshan nimi xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco waxay ku eedeynayaan inaad hanti lunsi iyo musuqmaasuq ku kacday intii aad maayirka ahayd bal ka waran arintayada dadkiina boqolkiiba konton waa dayar boqolkiiba kontonkii kalena waa ku guurida cashuurtiinu meel kale ay martay cashuurta joojiyo bixinina in qofku hadalka uu ku hadlayo mas'uulka ay dadkaanu kala qaybin afkiisa dhawro inaanu dadka u jawaabin xildhibaanada golaha deegaanka qaarna waxay sheegeen in cashuurtu sidii la rabay u soo xaroto bulshadii hadallo kala duwan oo ismaandhaaf ah u sheegaysana maadaama tii golihii deegaanka degmada Burco bal ka waran sidee bay bulshadeedu ku aaminaysaa aan joogana sankan iskaga talana maanta la iga dhaqaajinayna wala madaxweyne wala maayar wala wax kale cidna waxba laga weydiin maayay daawadayaal waxaan halkan kula kulanay maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi oo hadda ka soo baxay xafiiskiisa maayirka waxa weydiin doonaa dhowr su'aalood oo ku saabsan howlaha shaqadiisa ee ka qabta dawladda hoose ee degmada Burco waanad ku maasantahay oo shaqo ka baxay inaad wareysi noo ogolaato su'aasha horeysan gudoomiye ku weydiinaya waxa weeyaan ilaa maalintii aad la wareegtay xilka maayirnimo adiga iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka muran iyo isfahwaaba ka dhex taagnaa bal ka waran gudoomiye murankan muxuu salka ku hayaa murankan wuxuu iska hayaa waxa golayaasha isku wada hayaan iyo golayaasha deegaanada kala duwan oo dhan waana xildoon sida ay sheegeen iyagu in badan ay ku soo celceliyaan dewaabada iska shacsan maayirkii ku xigeenka la bedelo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco waxay ku eedeynayaan inaad hanti lunsi iyo musuqmaasuq ku kacday intii aad maayirka ahayd bal ka waran arintayada wax wareysi weyn oo dheer bay u baahan tahay dawladda hoose cidi waxba ka musuqi karto markii aanu meeshan nimi meel jannaan u sameynay dawladda hoose ama lambarkan ku iibsaday lacagtu ku soo gasho boqolkiiba 90 iyo 5 lacagtu digital bay nagu soo gashaa isla banka digital baa lagu geeyaa banka dawladdan isticmaalna system buu leeyahay digital ka iyaguna xisaabaadku system digital u leeyahay shaqaalaha oo dhan tan diiwaan gelin lacagahooda telefoonka loogu diraa cidii wax kale naga doonayso check halkana waxay leedahay miisaaniyad wax la xadi karo oo meesha oo qof lagu magacaabi karo cidba la siiyaaba ma jirto marka mid kale maxaa wax la cunaa cashuur horta ma soo ururta wax laga cunaa ay musuqa laga hadlayo boqolkiiba 5 ma gaadho imka magaalada waan diiwaan gelinay anaga GIS ku diiwaan gelinay dhulka banaan iyo ka dhisanba marka cashuurta asaasiga ee magaalada soo gashana waa taa ardiyada ee magaalada ka soo baxda marka 32,000 bay guryaha dhisan noqdeen 11,000 baa laga hayaa marka lagu daro intan u dambeysay 27 ee u dambeeyay intaan la tirin way diiwaan gashay marka 32,000 laga hayaa misaa maqan 22 soo ma maqna akay marka dadkiina boqolkiiba konton waa dayar boqolkiiba kontonkii kalena waa ku guurida cashuurtiinu meel kale ay martay cashuurta joojiyo bixinina waana dambi qaran marka qaranku tallaabo ka qaada bay anaga xeerosaadkii jabiyay oo xeerkii caadiga jabiyay marka waxba lama musuqi karo annaguna ilaahay baan ka cabsanaa waanan ku kalsoonahay waanan cadaynaynaa inaan naftayada iyo qoyskayga wax xumadaasi leedahay inay gelindii maayireen maalmihii dambe murankiina waxa ka hadlay siyaasiyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaal urur siyaasadeed iyo gudoomiyahayda waxaana sheegeen in ay magaalada Burco wali taagan tahay halkii uu kaga tagay maayirkii hore degmada Burco bal ka waran arrinka idinka ma shaqadan dhex martay mas'uuliyiinta kala duwan warniyow anigu berigii hore waxaan ku ololeeyay marka dambana aan ku celceliyay inta badan waxa weeyaan in qofku hadalka uu ku hadlayo mas'uulka ay dadkaanu kala qaybin afkiisa dhawro inaanu dadka u jawaabin markaas mana yihii siyaasiyiinta garasa afka dhaadheer waxaan shaqadooda hayn dadka la gala ama dadka kala qaybiya ama cunfiga iyo qabyaaladda iyo arrimahan marka deeniyahow qofka mas'uulka ee ku yimaada wax kula qabtay bahale ee ku dhaliila dhaliisha qaadan kartaa muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxaan doonayaa weeriskan anigu oranaya in qalbiyada dadka la hadlaan ma aqliyada dadka weyn qalbiyada dadka la hadlaan marka erey xunina noogama tagin dadkana waxaan doonaynaa inaad weydiiso su'aal fiican oo dadka qalbiyadooda la hadasho jawaabtooda laakiin aan qof jawaabo iyo inaan magaranaysaa cunfi ka hadlo ama si kale magaranaysa ama cid doonaysa xumaanta inaan la qasto marnaba lama baahnayn marka cidii la jecel la qabato ee degmada joogta ee dad degan ee muwaadiniinta aan u talino inta karaamada si fiican nolol shaqeysana waa mahad celinayna inta kalena cashuurta inay bixiyaan isla xisaabta kana xaq bay noogu leeyihiin anaguna shiid cad baan sidana gudoomiye dad badan oo reer Burco oo cashuur bixiyaal ay waxay aaminsan
tamashleynaya cashuurtii ay bixiyeen inuu meelo kala duwanna ku tegayo waa aaminaad iyo hadal laakiin dee factis maaha eeg waa aaminaad iyo factis annagu ilaahay baa ka baqanaa cid ilaahay warto kale kama habranno ilaahay subxaanahu watacaala wixii aan ugu dhaaranay iyo wixii anugu markaa shacabka ahaa dadka naftayda iyo maalkayga iyo tamartaydaan dee u huri jiray aniga iyadoon dadku ii dirsan oon dawlad uga shaqaynin oo aanay xil ii dirsan oo aniga ila xisaabtamin oo aqoonin ayaan anigu lacagta aan anigu leeyahay taan ummadda ka soo ururiyay waqtigayga tabartayda dadka gelin jiray dii aniga maanta tii halkii damaqii halkaa jirayba maanta halka anigoo mas-uula dee xaqna layguma leeyahay mana qabato moogtay in la yidhahdo waxba igamana suurtowdaba dee waayo markaa shacabka habay dee iga suurtoobi lahayd inaan dee galbaabkayga inta hoosta ka xidho sida dad badan oo dee arlada jooga inaan dee hoosta shaqadayda wata dee gaarka ahay aniga markaa dee anigoo imika halkan jooga waxa 5 sano dadka u kireysanahay ee ilaahayna uu ila damcay waayo casa wajallaha subxaanahu watacaala sababay inaan meher noqdo amarkiisa maalintii calool aan muxuu ahaa dhaqaaqeen caloosha galay baana la qoray dee loox maxfuudka inuu meher muddadaa noqon karo walaalahayga wanaagsan ee karaamada leh xildhibaanada meesha igu jira na waxaa noqonin marka inta ka tolanna dunida oo dhan hadday isugu timaado lagama kaxayn karo berri haddii ilaahay qoray laga kaxeeyo iyo midna kuma difaacan kara bartanaa ka baxaya laakiin anigu qof ahaan dee qof karaamo leh oo aan maanta wareejinayna dee waa la arki doonaa marka anigu kaan anigu kontraaga la galay waa casa wajallah bulshadana anigoo shaqanayay maantana anigoo mas-uula cid ilaahay abuurtayna caydooda iyo maagistooda iyo dhaliishooda dadna waa dad ummaddii aan xilka u hayo xaq bay u leeyihin oo nin xil qaaday eed qaad wixii dheeraadana saamax bay iga yihin dhammaantood cid kasta oo kale waxaa sheegtay guddoomiye in cashuurta aydaan sidii la rabay usoo xaroon xildhibaanada golaha deegaanka ee qaarna waxaa sheegay in cashuurta sidii la rabay usoo xarooto bulshadii hadallo kala duwan oo ismaandhaaf ah u sheegaysaan maadaama tii golihii deegaanka ee degmada burco bal ka waran sidee bay bulshadeedu ku aaminaysaa ama bulshada sideeba war run ugu sheegi kartaa dadka waxaa waajibkoodu iyo cidda gacanta ku haysa annagaa kombiyuutarradii iyo waraaqihii iyo documentation iyo sharciyadii iyo soo qaadistii iyo fulintii annakaale dee annagaana war u hayna dee marka wixii dadka ka soo galay dadkan dhibaata iska haysato wadada yar xaafadaha qaar baa markaa u tagtay dee imika cashuurta la yidhaha lagu fuliyaba intay bixin waayaan dee soo muxuu ahaa aad arkaysaa waa dee noloshooda markaasay khasbaysaa in aduu ka bixisid ama ka dhaaftid badii boqolkiiba kontonkii hayeyna dee waa tii walaa lagu shubay dee xalka ee la yidhi dee cashuurtiinii gacmo kale ku dhacda waa laydinka soo wada qaaday meeshii musuq baa ka jira cashuur aanaan ansixinin baa laydinka qaadaa dee waxaasoo dhan dadka markay dhegtooda xun ku dhacaan waxyaabihina sababay bay ka mid ahayd inaan muxuu ahaa dee bulshada aamin bixeeda iyo dee xumaynteeda waana wax lagu talagalay bay dee ahayd ma garanaysaa ayaanu maayarku 6 bilood hore nala gaadhintii ayuun bay dee ku salaysay bulshadu maayar iyagana waa la soo doortay idigana waa lagu doortay sidee bulshadu markaa aaminaysaa kiina run sheegay war horta deena xildhibaanada mar kasta aan u jawaabo imka jawaab ay ga raadinaysaa xun oo dee ma garanaysaa iyo tanno anigu walaalahay mar horena waan iga xal ka bixiyeen aan isu jawaabna ma doonayo dadkana qalbiyadoodana wax xun geliye ma doonayo hadal xun oo ma garanaysaa imika dee dagaal la inaan sheego ma doonayo anigu diyaar baanay dee xaruntaanu joognaa waa naga wada shaqaynayna waa socotaa shaqadayadu maalin lay u socotaa qofkii ummadda iyo dalka iyo dadka iyo diinta la jecel kale dee ha yimaado hadduu shacbiyadaha nala shaqeeyo haddii loo soo doortay oo mushaar iyo shidaal buu qaataa uu loo soo doortayna dee waa soo dhaweynayna marka dee dadka nagama dhaxayso mar kasta qalbi wanaag iyo wanaagsanaan baan u haynaa ciddiina dhaliilaysaana dee marna mas-uul baan noo xil eed qaad weeye wixii kalena walaa saamax bay naga yihiin laakiin muhiimadda weyn waxa weye dhibaato dhaqaalaha degmada iyo gobolka haysata 3 dagaal baa dee hararaha kaga furnaa dadkuna marka hore danyar bay ahaayeen sixir barar baa dhaco taagantay waad ogtahay qofkii xataa shaqaynayaba wuxuu taa soo shaqaystaan waxba oona u goynaynba oo hadday ogtahay xaaladdu sida ay yihiin marka dee maca gurmad baa dhinac socda dadka imika halkaa yimaada inta ugu badan danyartee dee kaalmo doonaysa iyo inaad cashuurta ka soo qaadaysaa dee way isleegihiin maalmaha qaar marka dee qofkii maxaad samaysaa hataa imika tika xataa qaldaday soo qabatid maanta dee reer danyaro ay maanta usoo shaqo tagtay oo wax loo baxalay haddaa isdara imika halkaa meel war xataa dadkii waddooyinka fadhiyey abar yaroo kibis meel ku dubaysa oo intaa caruur jaamacad iyo iskuul iyo ka shaqaynaysa ka kac meesha marka meeshan dadka in lagu hayo waa iska dhakhtar weynu in dadkii lagu hayo intii wax haysay iyo intii wax heli karaysayna dee intii ilaahay wuxuu dhiibana maxamed siciid dahabshiil allah u karaameeya baa ugu weyno oo wax nagala qabtay cid kale maanu helin dadkii gobolka u dhashay caawimadoodii iyo garab istaaggoodii iyo shaqadoodii baa dee la sugayay waay mayrod mahadsantay xildhibaan axmed xiis dharbaan dhaliilo kala duwan buu ku soo jeediyey wareede dee weli way sii qoqobaysa anigu nimankaa walaalahaya
dee dadka ayaa dhegeysanaya qofku wuxuu ku hadlayaana waa inay noqdaan wax sugan oo ilaahay subxaana watacaala kaga cabsanayo malaa'igta garbaa saarana berrito ay weydiinayso dee waxnaba wax duubmaya oo imika dee kabaladiinan iyo waxa masiibada la soo kordhay waxa weeye in dee qofka intaasoo sano loo kaydinayo dee taagna markaan walaalay kalalkay u jawaabi maayo laakiin hal qodob baan xasuusinaya aniga cabdiyare lama yidhaahdo magacayga cabdirasaaq cabdi ibraahimna lama yidhaahdo cabdirasaaq ibraahim cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa haddii lasoo gaabiyana waa cabdirasaaq ibraahim cabdi marka magaca inaga sax baan ku leeyahay walaal magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdi ibraahim lama yidhaahdo meerka burco haddaad xataa cabdirasaaq hiiro inaa la intaa doonto intaasu baa leeyahay laakiin xaq bay u leeyihiin wixii kale ay dee laakiin waxaas waa in run noqdaan xaqiiqna ay noqdaan ilaahay subxaanahu watacaalana waa ka yidhi hadhow fatabayinuu an tusiibuu qowman bijahalatin fatasbixuu calaa maa facaltum naadimiin marka ugu dambeyntii maayareyn bulshada reer burco gudoomiye tacbaana baad soo saartay dee waad igu sii taftay ugu dambeyntii bulshada reer burco waxay si weyn isu weydiinaysaa dhul danguud oo la iibinayo oo ay ka mid yihiin wabas galabkii jaamaca eryada u dhow bal ka waran arrimaha ma hayne dowladda dhexe arrimaha ka mas-uula dhulka guudi mayrkii magaalada sharci dee anu ma hayo ma mayrka iibinaya lidinku dee xaqiiqadu ha timaado marka haddii dhulka qaranka ka mas-uula dowladda hoose iyo dowladda dhexe wixii dadka iyo looga baahdo danguud sidii 8 meelood ee ummaddu isticmaalaysay baa loo iibiyey qaar garoom ahaayeene qaarkood ay ahaayeen dugsiye waxaasoo dhan ahaayeen waxba iminka kuwan cidiba ma isticmaashaba haddii uu qaranka u baahdo dowladda dhexe ku xidhanta maayir ugu dambeyntii su-aalaha u dambeeya ku weydiinaya kala fadhiyadii aan caadiga ahayn haddii kala fadhiyada aan caadiga ahayn xukuumaddu waxay xirtay ilaa maalintii laydi doortay bal adigu saad aragta dee walaal eeg waxaasaa unbaa la arkayo in dhibaatadaasi dhici karto waana bolisi mas-uuliyad iyo dowladeed haddii berri la furana dee waxba kuma jabnaa muhiimadda u weynayso maa waxay ku xidhan dunin maayir iyo ku-xigeenka la bedelo casaawajalaha qoray iyo wixii kale ee ficile ahayd qof ka weynne intuu naftiisa aaminsan yahay iyo intuu awooddiisa ku kibraya waa inay ka weynaataa intuu subxaana watacaala ilaahay awooduhu wuxuu dhigay uu aamino inta yare aan joogana sankaan iskaga talonna maanta layga dhaqaajinayana walaa madaxweyne walaa maayar walaa wax kale cidna waxba laga weydiin maaye halkaasaa ka baxaysa adigoo hulluqinaya go'aamo kala duwan baa soo saarteen oo aad ku fulinaysaan goobo kala duwan go'aamadaas waxaa ka mid ahaa soo saarteen aad soo saarteen oo ay ka mid ahaa in aad banaysaan wadooyinka ma waxa fulaya wixii xildhibaankii kugula socday uu leeyahay waa been iskuma naan ogeyn shacabkii ku soo doortay iyo bulshada reer somaliland waxay isweydiinayaan maayar cabdirasaaq xisbigu ku biiray ilaa xatalaana ma xisbigiisa hore ku jiraa maadaama maayir ku-xigeenka uu sheegay inaad ku biirtay xisbiga kulmiye bal bulshada taa u cadday tahay maxaa biirid ba keenay anigu soonigii markii aan xildhibaanada soo baxayna xisbiya ka soo baxeen oo u cidiye kulmiye wadaniya baa jiray miyo mid kale jiray soo intan ma marka maayar la noqdana qofku arrimaha siyaasadeed iyo xisbidaalka uu iska dhigaa mas-uul baane xildhibaanadan baa xaq u leh imika inay meeshay doonaan maraan siyaasadda u hadlaan jiidhaan anigu meeyar baan miyaad iga maqashay anigu meel baan galay meel baan ka baxay iima taallaba sababa dee imika xataa midaan ku biiray midaan ka baxo waxaan ku tarayaaba ma jirto anigu meeyar baan oo ummadda oo dhan ee kala duwan ee ururadii imika 10 noqday ka soo wada jeeda iyo kuwa kalan addoomaha ilaahay u madax bannaanaan meel lama joogin intaasaan meeyar u ahay marka igamaba suurowdaba inaan dee cid u ekaado dowladaha hoosena saddexda dhadhaaree fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta fulintay ka tirsan yihiin macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala